ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa guuli waaweyn ka gaaray dagaal ay ku soo qaadeen ciidamada sheeganaya daraawiishta Jubbaland oo garab ka helay dawladda Kenya. Dagaalkaasi oo socday saacado degmada Balad Xaawe ee gobolka Gado ayaa waxay gudaha u galeen ciidamada xoogga qaybahooda kala duwan magaalada Mandera. waxa ay la wareegeen dhammaan goobihii ay dagaalka ka soo qaadeen ciidamada daraawiishta Jubbaland isla markaana garab ka helayay ciidanka Kenya. ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa dib ahaan gacanta ku dhigay goobihii ay fariisimaha u hayeen ciidamada joogay dhanka Kenya ee xuduudda. ciidanka ayaa waxa ay dagaal ku soo qabsadeen 3 baabuur oo tignika ah halka 2 kalena ay ku gubeen. waxa aag ugu horeeyay jiidda dagaalka ka socday joogay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gado ahna madaxa amniga iyo siyaasadda gobolka Mudane Cusmaan Nuux Xaaji Macalimo iyo taliyaha xasilinta gobolka Gado Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aadan Bakaalkooke iyo saraakiisha kale ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qaybahooda kala duwan iyo dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Gado oo ka qayb qaatay doorkooda dagaalka geesinimada ah ay maanta muujiyeen. ugu horeyntii waxaa goobta fagaaraha argada ee degmada Balad Xaawe kula hadlay shacabka reer Balad Xaawe ayaguna doorkooda ka qayb qaatay dagaalkaani. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gado ahna madaxa amniga iyo siyaasadda Mudane Cusmaan Nuux Xaaji Macalimo iyo taliyaha xasilinta gobolka Gado Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aadan Bakaalkooke oo u mahadceliyay shacabka reer Balad Xaawe oo u muujiyay dawladooda hiil iyo garab istaag. تحتين بأفر بريء حبت من سوريا حبت مالي صاروا عدوكتين عيد الحوك دك الصوماليين إيش عارف الصوماليين حبت من سوريا عدوكتين دك سجال كسر الحكومي ونمكة تقول الحكومي ما حبت بالله وعيد الحكومي كل عيد الحوك دك الصوماليين إذا جماعة كلها من حبت مكلين ما أنت الثالث كي قعدتها كسوريا لما كم يدورنا متكم يدورنا قوي لما قعدتها قوتنا واحد هو بيتهم أي مقالة فوق العين ودوبتين ضد مقالة كنا حيا معها قليل مكان